محمود محمد فارح وأرضي دي صوماليا كتمت اسطنبول بوجوغا دور iyo 10 sano hadda halkan jooga ujeedka ugu weyn ee muuqaalkan aan ugu duubeyno waa dhiirigelin iyo in dhalinyarada ka dambaysa ama kuwa ku haminaysa inay turki wax ka bartaan lagu baraarujiyo waxa la barto iyo faa'iidada ka dhalato maxamuud marka ugu horeysa su'aasha ka jawaabaysa waxa weeyaan markaad imanaysa turkiga sababta aad u timid waxbarasho kaliya miyay ahayd mise inaad sii dhooftana waad ku tala jirtay ugu horreyn Catosh marka ugu horeysa ku soo dhow dalka Turkiga guud ahaan khaasatan magaalada Istanbul su'aashaada haddaan hore u sii hordalo ugu horreyn aniga hadafka aan lahaa markaan Turkiga imaanay waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa wax aan barto oo waxbarasho darteeda ilaa iyo anoo aqoon-yahan ah dalkayga u laabto marnaba niyadeyda ma soo gelin inaan sii taariyo mise wadamo kale aan sii aado marka hadda meeqa sanaad waxbarashadii ku jirto ku dhamaysay waxbarashada waxaan ku jiray dugsi sare ilaa iyo maanta la joogo muddo 10 sano ah dugsiga halkan ka baxday dugsiga halkan ka baxday ilaa iyo jaamacad waa gartay maxaad baratay waxaan bartay health care management waxa la yiraahdo maamulka maareynta isbitaalada iyo maamulka systemka caafimaadka ku shaqeeya marka wixii aad barato hadda ku shaqeysaa wixii aad barto hadda ku shaqeynaa aniga iyo team kale badan background-geena caafimaad ah oo ku takhasusay waxaan furanay xarun caafimaad oo la dhahay health tourism oo harga lagu magacaabo taasi oo maxaa la yiraahdaa dad Soomaaliyeed markay Soomaali ka yimaadaan u soo doonta dalka Turkiga caafimaad aan u jiheyno isbitaalada caafimaad si caafimaadkooda ay isugu daaweeyaan anagana meeshaas qaab shaqo ahaan ay nagu noqoto waa gartay marka hal abuurka idinka lahaa hal abuurka anaga lahaa aniga iyo team badan fariisanay waxaan ku tashanay maadaama wadankan aan joogno muddo 10 sano ah aan caafimaad ka baranay in maxaa la yiraahdaa dadkeena Soomaaliyeed dadka caafimaad soo doonanayo aan caawino aan isbitaalada Turkiga ayaga dhexdooda aan u dhexeeno anaga meeshaas qaab shaqo ahaan hal abuur ahaan ka soo saaray imisaatiin marka dhalinyaradiina waxaan nahay ilaa iyo 5 qof oo kulli Soomaali ah dadka mu turjuntaan dadka oo turjunaa isbitaalada waa geynaa waxa xarun ku leenahay Istanbul ilaa iyo caafimaadkooda oo ka caafimaadayo ka soo reysanayo anaga mas'uuliyadooda caafimaad qaadno waan u turjunaa waa gartay shaqada noocaas ah maxaad ugu xiratay waayo waxaan aragnay dad Soomaaliyeed oo tiro badan imaada dalka Turkiga khaasatan Istanbul iyo Ankara aanan haysanin maxaa la yiraahdaa luqadna aan fahmi karin aanan kala aqoonin isbitaalada aanan kala garan karin halka caafimaadkooda cudurka haayo isaga daaweyn karaan anaga tan waxaan u aragnay maxaa la yiraahdaa abaantaas aad u weyn waxaan sameynay marka waa dadkii waxaan sameynay wacyigelin oo sameynay waxaan dhahnay anaga idin hayna isbitaallo aad jeceshiin luqadina anaga idin naqaan marka luqadda qofka caadiga uu yaqaano ee qofka markuu luqadda caafimaadka ku yaqaano oo kala sii duwanta anaga jaanis waxaan kaloo sii haysanaa luqadda caafimaadka iyo medical terminology-ska maadaama aan naqaano fursad waxaan u aragnay dadkeena Soomaaliyeed si fudud aan ku caawin karno isbitaalka ay rabaan iyo xanuunkooda aan kaga caawin karno waa gartay dad badan baa Turkiga si dhaafa ama Yurubta aada ama si kale dhoof dibadda u raadiya adigu weli dhoof ma ku galay weligii ima gelin dhalinyaro saaxiibana oo tiro badan baxay laakiin marnaba ima gelin saameyn uma yeelanin waayo waxa jirto qof walba waxa uu leeyahay hal abuur uu leeyahay maanta haddii aad fiiriso dalka Turkiga dhalinyarada marka ay maana waxa u furan in ay fikiraan oo waxyaabo badan shaqo badan ay sameeyaan hadda sida hadda ardayda qaarkood ee halkaan ka qalin jibiyay shaqo hal abuur ay u sameysteen oo kale waa gartay ma isleedahay kuwii dhoofay waad ka nolol fiican waa isleedahay dabcan nolosheena wanaagsan tahay shaqadeena waa qabanaa hawsheena waa sii wadnaa nolosheena waa maareynaa waxbarashadeena way noo sii socotaa waxaa jira dhalinyaro hadda Turkiga u joogta Istanbul oo la kulmay inay dhoofaan gaar ahaan xuduudan webiga laga talaabay Greega iyo weliba badda oo rafaad badan kuwaas maxaad oran lahayd waxaan oran lahaa in ahaantayda naftooda yeesan miineenin oo haligin inay iska joogaan oo shaqo abuur ay sameeyaan oo kaliya maskaxda ay ka shaqaysiiyaan waayo suuqu waa weyn yahay meesha aad ka gashaba waa faa'iido ana ahaantayda inta meel kale loo dhoofi lahaa oo khasaare kaliya hadda hor leh waqtigan uu ku sii bixi lahaa waqti nafurid iyo maaliyad ay ku sii bixi lahayd inay joogaan oo wixii halkaas ay ku bixi lahaayeen hal abuur ay sameeyaan maskaxda ka shaqaysiiyaan waxbarashadooda sii wataan waxbarasho ay bilaabaan nafsadooda sii horumariyaan kula talin